Somali Somali hanbay rabtaa inay wada hadashayo heshiis runah bay rabtaa برنامج ودويها amaan huba bay rabtaa fadраalayo dastuur hirgalay rabtaa amaan huba bay rabtaa سو دواده عبتان مدين كنا ما يعرفين واحد hirgalay rabtaa ير نود القات برنامج هذا أيوه بالعابين ما دقدق ما خبنا سوق كنا واحد يد عبتان كو كنا ما يعرفوا سعد واحد فاطمة جلس بيدي hibada diinteeda iyo ilaa horti bay rabtaa hidiyo dhaqankay lahayd aqoon hidisay rabtaa qarsoon hufan bay rabtaa asxaab hinqisay rabtaa أبا محا أنت بس مدح بينا محا نقول صورة انت أنت مدح بس محا نقول صورة ما حد عليه ما جيت كده صورة madaxweynaha waa madaxii ugu sareeyay maamulka محا دكامة دون كدكسين taas waa sharci aan dukaamada la dajiyay madaxan waxa lagu sabiraa waa madaxii ugu sareeyay dawladda intaas in laga sabiro waa inta kale waxa iska leh ra'iisul wasaaraha wasiiradii qofka hadda markii uu saas u taagan yahay madax kaliya ma socona ما waa inuu gacmo helaa gacmo inay lagu helaan u socon karo qof dhan inay dawlad adag noqoto مدح بينها هدا مدح بس لقوا صورة رئيس وزراء مدح الآن ميا ra'iisul wasaare madax la'aan ma aha madaxweynaha madax ya أبا أنا هدا مدح وين نقطة أنت بس مسك صورة haye أنت لا مسك صورة adoo dhan la issabrey ها may taas xaq ma dadku waxa kula qaybsadaan kaas kali tarinimo waay أبا أنا مرني marka intaan adi laga sabiro intan kale wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha iyo ya maamulka kale si مدنه ha واديار ha hay meesha la fadhiya aan doo diran garahan seexan السلام عليكم salaam في عنك خير الحمد لله ما أنت تصور بضوطها ha أنا dadkii صور madaxweynaha مدحوينها ha لكن برنامج كان كهل لنا ما مدحوينها كم صاب سنة وأود فلنتا ma iska dhigi karaa marka سكدي هالكم تسكدي وهي هو شرعي ما ربنا نشوفه صدح لاو حل kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkaygii u sheeg shacabka oo uu caawa marti inoogu yahay mid ka mid a mudanayaasha baarlamaanka xuseen xaaji iidle oona ka wareysan doona awood fulinta dowladda xuseen xaaji iidle kusoo dhawow aad baan ugu dhawaay barnaamijka su-aasha u horeysa ee aan xuseen ku weydiinayna waxaa ka mid ah yaa leh awood fulinta dowladda federaalk ee soomaaliya ma madaxweynaha mise golaha wasiirada wixii sharci ah buugaan ay ku qoran yihiin dastuurka inkasta uu qabyo qoraal yahay haddana waxyaabo badan baad ka helaysaa hadda waxaad weydiisay awood fulinta federaalk soomaaliya iskale madaxweynaha mise golaha wasiirada minta golaha wasiirada waa cutubka sideedaad laanta fulinta waa 54aad u kaada awood fulinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa iska leh golaha wasiirada very good inkastoo madaxweynaha meesha ugu sareeya madaxeeya laakiin golaha wasiirada ayaa iskale shaqada taasi waa mid hoos imaanaysa ra'iisul wasaaraha ay fulinteedin leeyihiin golaha wasiirada aga fulinta waa golaha wasiirada marka awoodda saas u kala qaybsan madaxweynaha uu keliya gacanta ku hayo
qofka filimka aad ku aragteen waxa uu qeexayaa sida uu qabo dastuurka ku-meelgaarka ah kaalinta ay madaxweynaha iyo hay-adda fulintu ku leeyihiin dowladda federaalk ee Soomaaliya. qodobka 64 ee dastuurka ku-meelgaarka ayaa oranaya muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa soo dooranaya xubnaha baarlamaanka ama golaha shacabka iyada oo baarlamaankuna ay soo dooranayaan madaxweynaha. madaxweynuhu waa madaxa iyo astaanta wadajirka qaranka. waxa uu mas'uul ka yahay inuu magacaabo ra'iisul wasaaraha oo ah madaxa hay'adda fulinta. magacaabistaasina waa inay soo aqbalaan xubnaha baarlamaanka ah. golaha fulinta uu madax ka yahay ra'iisul wasaaruhu waxa ay ka kooban yihiin ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada. waxay mas'uul ka yihiin hirgelinta shuruucda ay baarlamaanku keenaan iyo samaynta siyaasadda dawladda, hubinta amniga qaranka iyo ilaalinta danaha qaranka. waxaa kale oo golaha fulintu ay soo jeediyaan magacaabista iyo shaqo ka fadhiisinta safiirada, qunsuliyiinta iyo diblomaasiyiinta.